waxaan idiin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay qof iyo cod runtii muddaan ka shaqeyn waa xaqiiqa waxa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno iyaguna waxay lahaayeen waqtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taaginahay dastuur yaan ku taaginahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott galeen waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa tan labaad oo aan u tanaasulay inaan anagu waxayna ha xumaato ha samaato anagu aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyaddeedana aan qaadanno laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin uusan sukaa soo jijiidin taasna inaan ka fogaanno baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan ayay ka soo shaqeeyeen hawshaan waanu u soo dhabar adeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u daneeyaan dalka inay dadkooda u daneeyaan inay maslaxadda xasiloonida u daneeyaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaahay yidhaahdo